بسم الله سلام الله عليكم أصحابته أنا جعلنا هاي ولا لها أيان دين سلامينا ميل كستو naga dhagaysanaysaan ama aad naga daawanaysaan iyo waqti kasto idin tahay adayaan idinku salaameynaa haddaba ku soo dhawaada ogaal media oo qoriisa ugu weyn uu yahay inuu idin soo bandhigo waxyaabo badan oo ka dahsoon umada isla mar ahaantaana dhalinyarada dadka shacabka Soomaaliyeed u adeego Real Media wuxuu ka qabtiri doonaa wax walba oo markaasi aan ku dhiirigelin karno ummadeena Soomaaliyeed iyo sida ay isku gacan qabsan karaan haddaba maantay amaba caawo xilli walba ay ku tahay waxaan idin soo gudbinaynaa taariikh ku saabsan dalka Singapore maxaad ka taqaanaa Singapore waa maxay Singapore muxuu yahay wadan noocee ah ayuu yahay waxaan doonaynaa inaan wax ka ogaano Singapore waa dal dhaco koonfur bari qaaradda Asia waana dal ka kooban hal magaalo oo kaliya Singapore waxay ka kooban tahay 63 jasiiradood oo yaryar baaxadoodu waa 721.5 kiiloomitir oo wareeg ah waa dhul aad u yar waxay 32 jeer ka yar tahay wadanka Djibouti oo aynu ognahay inuu isaguba yahay dal aad u yar Singapore waxaa ku nool dad kor u dhaafayo 5 milyan oo qof 3 milyan iyo 300 oo ka mid ah dadkaasi ayaa ah muwaadiniinta wadanka waxaa daga 3 qowmiyadood iyo dad kale waana Chinese boqolkiiba 73 Malay boqolkiiba 14 Hindi boqolkiiba 9 halka dadka kalena ay yihiin boqolkiiba 4 Singapore waxa ay sanadkii 1963 ka xorowday gumaystigii Ingiriiska xilligaas oo ay la midowday dalka Malaysia sanadii 1960kii ayay banaanka u saartay oo ay iska goysay Lee Kuan Yew oo ahaa hogaamiyihii Singapore gaarsiiyay xadaariyada iyo horumarta ayaa calaalay oo warbaahinta horteeda ku ooyay dad bilaa xadaarad ah jaahil ah faqri ah kheyraad aan lahayn waa dad banaanka ku qabaysto wasaq leh wadooyinkana ku qabaysto ayuu yiri hadaladiisii wuxuu ku calaalay in Malaysia ay ka dhaxeeyaan xiriir walaalnimo darisnimo iyo mid dhaqaale arrinkan uu yahay mid xanuunaad badan waxa intaasi ka daran dadka Singapore-ka ah waa dad kala luqada kala dhaqan iyo kala diin ah oo isdagaalo xataa Singapore xilligii 60meeyadii waxaa lagu tilmaamay meelaha ugu khatarsan dunida balse heshiis iyo gacmo isqabsi ayaa ka dambeeyay oo ka yimaaday gudaha reer Singapore dad qalaad iyo ciidamo qalaad ma heshiisiinin ee iyagu ayaa u midoobay horumarka dalkooda iyo masaalixdooda iyo sidii caalamka wala safan lahaa haddaba xagee ka bilaabatay horumarkii reer Singapore horumarkii waxay ka bilaabeen dhisidda maraakiibta samaynta qalabka korontada sifaynta shidaalka waxayna soo jiiteen shirkado badan sida shirkadda Shell oo maalgashatay dalkaasi dadaal kadib Singapore waa dal aad u horumaray oo leh dabaqyo daruuraha taabanayo dhaqaale sareeyo iyo shacab ilbax ah shacabkii shalay buushashka deganaa maanta dabaqyo ayay degan yihiin Lee Kuan Yew isaga iyo shacabkiisa way iskaashadeen gacmaha ayay isqabsadeen wuxuuna ku baaqay ciddii maalgashanayso dalka
in ay maalgashan karto, taasoo bilowgii sagaashameeyadii kaliftay inay noqoto waddanka saddexaad ee ugu weyn sifaynta shidaalka caalamka, sidoo kale xarunta saddexaad ee ugu weyn ee laga kala iibsado shidaalka caalamka. kaliya waxaa ka horeysay London iyo New York. xilligaas shacabka Singapore wuxuu lahaa aqoon, wuxuuna ku noolaa guryo nadiif ah, halka 1960kii uu ahaa waqtigii uu joogay gumaystihii Ingiriiska, dakhligiisana uu ahaa 7 bilyan oo kaliya, halka uu haddana madaxweynaha waddanka waa Xaliimo Yacquub, halka ra'iisul wasaaruhu yahay Lee Hsien Loong, kaasoo leh awoodda koobaad ee waddanka. luqadda rasmiga ah ee dalku waa English, waxaa soo raaca rasmi ah Malay, Mandarin iyo Tamil. waddanku waa dal leh horumar bulsho oo aad u ballaadhan. dhaqaalaha dalkaasi ayaa sanadkii isku celcelis lagu sheegay inuu yahay 349 bilyan, waa GDP-ga waddankaasi, waana kan afaraad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, bal qiyaas hal magaalo oo hantidaas intaas la eg ay taalo. Singapore waxay ka horeysaa dhaqaale ahaan dalal badan oo Yurub, Amerika, Afrika iyo Aasiya oo dhaca kuwa waaweyn. Singapore waa dal leh baasaboorka labaad ee ugu xooggan dunida, kaasoo ay ku tagaan amaba ay ku tagi karaan 188 dal oo dunida ka mid ah bilaa fiiso. Singapore waa udub dhexaadka ganacsiga dunida, maaliyadda iyo xarunta gaadiidka. Singapore waa dalka leh internetka ugu wanaagsan dunida, sidoo kale waa kan ay ku kulmaan shirkadaha ganacsiga ee ugu weyn dunida. Singapore waa dalka ugu maalgashiga badan dunida, sidoo kale waa tan ugu macquulsan xagga horumarka. Singapore waa dalka ugu amnisan dunida, sidoo kale waa dalka ugu tamarta badan dunida. sidoo kale waa dalka leh suuqa sarifka qalaad ee ugu ballaadhan caalamka oo idil. sidoo kale Singapore waa dalka saddexaad ee leh xarunta maaliyadda ee ugu weyn dunida. sidoo kale waa dalka saddexaad ee ugu saliidda waa dalka saddexaad ee ugu saliid nadiifinta badan, adna ugu ganacsiga badan. Singapore waxay leedahay dekedda labaad ee ugu mashquulka badan adduunka. Singapore waxay 5 sano oo xiriir ah noqotay magaalada ugu nolosha qaalisan adduunka. sidoo kale Singapore waa dalka shanaad ee ugu nolosha wanaagsan dunida. Singapore waa dalka saddexaad ee dakhliga sanadeedka ugu badan leh dunida. qofka Singapooriga ah waxa sanadkii soo galo lacag lagu qiyaasay 98,000 oo doolarka Mareykanka ah. wadankani waa kan ugu horeeyay wadamada waxbarashada wadankan waa kan ugu horeeyay wadamada waxbarashada, caafimaadka, qiimaha nolosha iyo amniga aad ka u horumaray. sidoo kale Singapore waa dalka ay ka jirto shaqo la'aanta ugu yar qaaradda Asia, oo ka horeyso 1.8% qiimeynta la sameeyay sanadkii 2015. Singapore iyo Kuala Lumpur waa marin diyaaradeed ugu mashquulka badan dunida, kaasoo ay maraan sanadkii in ka badan 30,000 oo diyaaradood. hadda ku darso wadankaas aan ka hadlayay gebi ahaantiisaba 53 sano ayuu jiraa. Malaysia ayaa iska ceyrisay oo ku tilmaantay jasiiradii kaneecada. kaliya waa ay tashteen, waxa ay tuujiyeen maskaxdooda ayagoo dalkooda sida ugu wanaagsan u horumariyay. maanta Singapore waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan, qof walbana uu ku riyoodo inuu dego ama
uu u dalxiiso. waa hagaag saaxiibada na dhagaysanaya ee nagala socdo amaba na daawanayo ee nagala socdo miidiyaha dhinacyadooda kala duwan, aad ayaan idiin salaameynaa. mar kale inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. waxaa idiin soo saaray aadna idinkula socodsiinayay anigoo ah saaxiibkiin Ismaaciil Arax. waxaan ka codsanayaa saxaabta inaad nagu caawisaan subscribe iyo share si ay kuugu soo aayrahdee wax mar walbo aan video soo release gareyno aad u dhageysatid. waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada iyo subscribe-kaada. noolaada insha Allah.